عليكم داودyaal fiidnimo wanaagsan jimco wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan jimcatu muslimiin ayaa la leeyahay waa mar kale barnaamijkeena bidar caawiye TV oo helanaha dhalinyaradiisa meel walba dunida ka joogto barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa timihii new hair lotion ee soo saartay timihii new hair lotion ee soo saartay ayaa sakiin ku qabtay timihii new hair lotion ee soo saartay ayaa sakiin ku qabtay alaashan waa xiiray gabigood waa xiiray markaan xiiray madaxayga saan ayuu u ekaaday markaan xiiray madaxayga saan ayuu u ekaaday barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa walaalkan wuxuu ku sugayaa wadanka Canada gaar ahaan Ottawa oo ku sugayaa suu ila soo wadaagay la soco barnaamijkooda dhameystiran assalaamu calaykum daawadayaal meel walba joogtaan waa mar kale barnaamijkeena bidar caawiye TV anigoo leeyahay bidar caawiye fiidnimo wanaagsan ayaan ku leeyahay meel walba oo dunida ka joogto jimco waaye jimco maalin jimco ah 22 January 2021 waxaan rabaa barnaamijka intaan ku soo qaato walaal kamid ah barbaarta gaashaaman oo nala soo wadaagay kaniiniyada qaarkood uu kamid yahay kaniinigan ayuu isticmaalay iyo saliidda laba xabo new hair lotion 12 November ayuu bilaabay waxa cajiib ah sawirada quruxda badan suu ila soo wadaagay hal sawir ayuu ka soo dhigay suu u kala qaadayay iyo madaxiisa step ku marayay madaxiisa heerka uu marayay 12 November 12 December 12 January after maxaa dhacay 12 January after waxaa dhacay madaxii dhan ayuu xiiray gabigiis buu xiiray wuxuu yiri su'aalaha ugu soo noqon isweydiinayo ayaa waxay ahayd hadaa timaha xiirto ma ku soo baxayaan ana tijaabo yiri inta ugu galay barnaamijka haday tahay markii ugu horeysa soo boqoto channelka bidar caawiye TV subscribe like share comment haddii hore subscribe aan noo siisana suulka ilaahay kuma gooyo suul kor u taag dhag ku sii saaxiib bidar caawiye TV waa ogtahay oo heeranaha inuu yahay barbaarta gaashaama meel walba dunida ka joogto wiil ahow gabar ahow haddii ay tahay markii ugu horeysa soo boqoto channelka bidar caawiye TV waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe like share comment haddii hore aan like noo siisana oo loo sii subscribe kana like gambareelka furo insha Allah aan gudagal barnaamijka haday tahay ama ay tahay markii ugu horeysa ku fakaraysa inaad isticmaasho new hair lotion ama wiil dhalinyaro ah timaha daataan ama gabar timaha jajabaan mar walba isku day madaxaaga maalintii 2 mar ilaa 3 mar inuu qofka masaajeeyo maalintii isku day 2 mar ilaa 3 mar madaxaaga fadlan inaa masaajeeso madaxu waxba ku marsanayn inaa masaajeeso isku day haday timaha ku daataan iyo haday timaha ku daadan mar walbana iska dhis fitamiinada ka maqan mar walbana iska dhis fitamiinada ka maqan waa ku soo qaataa fitamiinada ka maqan haday noqon lahayd hatta cuntada cunayso bariis iyo baasta kalima ahan fadlan iska dhis cuntooyinka cunaysa taa qasab waayo qofku inuu iska dhis bini aadamka ah aan guud gal barnaamijka haday daadaad u dhaxayso 16 ilaa 26 mar walba waxaan jeclahay oo aan markaan soo xasuusto inaan kula wadaago ama kaaga digo daadaad haday u dhaxayso 16 ilaa 26 fadlan waxaan ka codsanayaa anigoo leeyahay bidar caawiye ah in aad iska ilaaliso waxyaalaha madaxaaga dhibka u geysanaya mustaqbalka fog waxa kamid ah jilcisada madooweysada kalarka hair foodka iyo jeelka kareemka jeelka la dhaho wuu dilaa madaxa wuxuu dilaa unugyada jirka dulduleelu madaxa leeyahay tushtushu leeyahay unugyadaas ayuu dilaa mar walba waxaan jeclahay inaan xasuusiyo dhalinyarada daadooda u dhaxayso 16 ilaa 26 jilcisada madooweysada jeelka kalarka fadlan waa ogtahay bini aadan ayaa tahay haddan waxa waaye hadda da'yar tahay hadda daba qabasho leedahay hadda tintaada iyo madaxa ka shaqeyn kartaa laakiin maray tinti haaday oo soo noqod ay lahayn cali doontaa maray tinti ka haaday oo soo noqod ay lahayn cali doontaa aan guud galay barnaamijka walaal kamid ah barbaarta gaashaaman oo ku nool wadanka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa ayaa wuxuu ila soo wadaagay sawiro cajiib ah walaalkan waxaan isticmaalay yiri saliidda new hair lotion laba xabo ayuu isticmaalay waxa kale oo ii dheer uu yiri kaniinigan oo isticmaalay hair volume-ka hore wada taqaaneen uu isticmaalay laakiin waxa u dheer kaniiniyada kale walaalkan nala soo wadaagay mid kamid ah sawirkiisa saan ayuu u egyahay walaalkan guul qurux badan ayuu ila soo gaaray ka gaaray uuna nala soo wadaagay walaalkan waxa kaaga sii daran walaalkan markii guusha uu gaaray ka bacdi madaxii uu xiiray markuu madaxii xiiray
sawirkii madaxa markuu xiiray saan ayuu u ekaaday markuu madaxa xiiray sawirkii saan ayuu u ekaaday waxaan leenahay dadka qaarkood kuma dhiiran horta ani kuma dhiiran lahay inaan madaxa xiirto kuma dhiiranahay ama niyadda ma gasho inaan xiirto taa ay tahayna cabsiga ma ahan laakiin asaga geesu ayaan leenahay timihii new hair lotion ee usoo saartay timihii usoo baxay ayaa dib loo xiiraabtay timihii soo baxay ayaa dib loo xiiray inta badan waa jiraa bishii 2 maraan jirtaa say timaha kale mar walba u gaaraan insha Allah saliidii aan shalay nila wadaagana ama ku aragtay barnaamijka xalab baxay qofkii u baahan sawradooda waa la soo wadaagi karaa saliidii kale oo organic ahaa qofkii u baahan sawradooda waa la soo wadaagi karaa walaalkan kaniinigu isticmaalay mid kamid waa aragtay kaniinigan uu isticmaalay kaniinigan sawirkiisaas yahayna uu isticmaalay walaalkan wuxuu ku sugan yahay Canada hadda koor Mareykan aan dhahay laakiin Canada uu ku sugan yahay walaalkan 2 xabo new hair lotion number 2 ah kaniiniyada aragtay hair volume-ka dadaal ayuu sameeyay walaalkan wuu xiiray intuu xiirin walaalkan intuu madax xiirin guusha uu gaaray saan ayuu u ekeed maasha Allah ayaa leenahay dadaal uu gaara walaalkan wuxuu kaloo igu yiri waxaan u xiiru yiri madaxa dad badan oo waxaan arkay ku soo weydiinayo ama commentiga aan ku arkay ku soo weydiinayo oo ku su'aalayo oo ku dhahayo tinta daaxirno ka waran waxaan noqonayaa score wiilkii ugu horeeyay ee kamid ah barbaarta gaashaaman oo tintii u soo baxday xiiray tintii new hair lotion u soo saartay xiiray kadib ayaan kula soo wadaagi doonaa before iyo afterka asoo xiiran waa aragtay sawirkiisii isbedelena waa aragtay adaa laga rabaa daawadaha ah inaad tiraahdo hambalyo mar walbana walaalaha qaarkood waxay soo weydiiyeen su'aalo xoogaa afkayga aan soo maraynin new hair lotion waxyaalaha aan ku aragnay daymish ah walaal ayaa wuxuu soo weydiiyey saliid inta isticmaalaya waxaan ku arkuu yiri xaggii hamiga oo iga yaraaday marka waxaan leeyahay walaalkaas haddii waxaan aad isticmaalayso wadab aan ku aragto waxaad aad sheegayso kale iskaba dhaaf ayada dhan walaalkaas waa u sheegay waxaan ku yiri haddii aad aamintay in aad ku aragtay isticmaalka new hair lotion in hamigaaga uu yaraanayo fadlan iska dhaaf saliid gabigeedaba waayo tima raadinaysay tima inta raadinaysay haddii hamigaaga aad ku weysan waa li waaye marka ani kolley shakhsiyan ani kuma arkin laakiin walaal ayaa comment igu soo qoray dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay dhib ka tahay ama ay ka tahay hadal iska weydiiyo walaalkan waa la sheegaya walaalkan hadda kood isoo weydiiyey waxaan ku yiri walaalkan su'aalan weydiiyey macquul ah adiga ma ku aragtay shakhsiyan mayuu yiri waa la yiri marka Soomaalida waxa u badan wax liya waa la yiri iyo waa la dhahay iyo waa lii sheegay iyo waa maqlay waxa ka fiican waxa adi ku aragto fadlan nala soo wadaag saan ula wadaagno bulshada inteeda kale mar walba waan ku dhahaa inta isticmaalaysa new hair lotion fadlan nala soo wadaag saan ula wadaagno bulshada inteeda kale ama uga digna insha Allah mar walbana barnaamijka waxaan ku kaga hadalnaa waxtarkeeda dhibaatadeeda iyo qof walba oo ku fikirayo asoo baashan adoo isticmaalin kaliya aad isticmaali kartaa darmarolka aragtay aad isticmaal ku cusubto kale waa isticmaali kartaa iyo saliidaha organic iyo kiniinida fitamiinada kale adoo tan isticmaalin ayaa isticmaali kartaa darmarolka saliidaha caadiga organiga ah iyo fitamiinada khasab ma ahan new hair lotion kale inaa futada ka wado qasab ma ahan haddii fadlan aad isku aragto timaha inay ku daataan oo kale oo new hair lotion aad isticmaali jirtana fadlan isticmaalkeeda gebigeedba yaray new hair lotion isticmaalkeeda gebigeedba yaray insha Allah waxaan ku leeyahay anigoo Liban Bidar caawiyo fiidnimada ku wanaagto jimco taslimiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh